wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wakiilka hay'adda GIZ u qaabilsan wadamada Soomaaliland iyo Soomaaliya waxaana wasiirka iyo wakiilku kala saxeexdeen mashaariic horumarineed oo ay hay'adda GIZ ka hirgelin doonto gudaha Soomaaliland. kulankan oo saacada qaatay kadib ayaa markii uu kulanku soo dhamaaday waxaa si wada jira warbaahinta ula hadlay wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cawaale Ibraahim Sharwac iyo wakiilka hay'adda GIZ u qaabilsan wadamada Soomaaliland iyo Soomaaliya waxaana hadaladoodii kamid ahaa Bismillahir Rahmaanir Rahiim. maanta halkan waxaan ugu soo booqday wafdi sare oo ka socda dawladda Jarmalka oo ka yimid Nairobi hadda ka soo kicitimay waxa ay inagala shaqeeyaan mashaariic badan in muddo ana waxay naga taageeraan xagga horumarinta dawladda Jarmalku waxaan markaa isla qaada dhignay waxyaabo badan mashaariicaha ay wadaan iyo kuwa soo socdaba iyo sidii xiriirkaasi loo kordhin lahaa waxaana si wanaag noo noqotay inaan kordhino kontraagyada mashaariicaha socda qaarkood in la kordhiyo marka waxa maanta aan ku faraxsanahay inaan mashaariicaha socday qaarkood kordhinay wada hadalka bacdi waxa kale oo war fiican ah inayna soo gaarsiiyeen in dawladda Jarmalku ay ka fikirayso ama ay ku qanacsan tahay mashaariicaha dhacay ee ka socda Somaliland ayna filayaan in bisha saddexaad ay iman doonaan wafdi sare oo sidoo kale ka socda wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka oo markaa sida aan filano kordhin doona wax tarka ama qaadhaanada ay ku kordhiyaan xagga horumarka marka waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan wada hadalka yeelanay ka wasaarad qorsheyn ahaan anagu waxaan hor dhignay waxyaabaha inoo ah ahmiyadda xagga horumarka ah waxaanan ku faraxsanahay inay dawladda Jarmalku tahay dawlad ogol inay nagala shaqeyso waxyaabaha Somaliland oo ah priority-ga ama ahmiyadda u leh sida wadooyinka wax soo saarka beeraha xagga xoolaha deegaanka iyo kalluumaysigaba marka waxaan aad ugu faraxsanahay in wada shaqeyntaasi sii soconayso wakiilka oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay sii wadi doonaan mashaariicda horumarineed ay dawladda Jarmalku ka caawinayso dalka jamhuuriyadda Soomaaliland